Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka qaniga ku ah xoolaha, gaar ahaan xoolaha ay dhaqato Soomaalidu ee saddexda nooc ama saddexda meesin ee kala ah: geela, ariga, iyo lo'da, kuwaasoo aan aaminsanahay inay yihiin kuwo aan sidii ugu habboonayd looga faa'iidaysan. Haddaba daawadayaal, waxaan doonaynaa mowduucaas inaan maanta xoogga saarno ama aan ka hadalno ee soo dhowaada. Waxaan doonayaa inaan maanta isla dul istaagno muuqaalkeenan kooban si aan uga hadalno hababka aan aaminsanahay inay tahay khasaaro aan ummadda Soomaaliyeed wax badan oo faa'iido ku qabin. Si wax looga beddelana aan doonaynaa inaan mowduucan dhowr arrimood ku soo koobno. Arrinta koowaad ee aan ka hadlayo waxa weeyaan, Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka lagu qiyaaso xoolahooda geela keliya inuu dhan yahay 7 milyan iyo dheeraad, halka lo'da la sheego inay tahay ilaa 5 milyan. Ariguna waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay ilaa 30 milyan. Taasi waxa ay muujinaysaa inaan runtii leenahay xoolo aad u badan, nambarkooduna xooggan yahay, balse aan ahayn kuwo sidii muhiimadda ay u lahaayeen aan bulshadeennu uga faa'iidaysan. Xoolaha tiradoodu intaasi la eg tahay, dhaqaalka marka laga hadlayo dhanka caanaha, faa'iidada suuqa Soomaaliya waanu ognahay oo caanaha waxaa looga keenaa dalal kale, taasoo ceeb ku ah xoolaha aan haysano, lagana yaabo dalalka caanaha inoo keenaya dhowr xoogaa yar oo saca ah oo laga yaabo xitaa inaanay gaaraynin 6 milyan ayay haystaan. Annagoo lo iyo geel iyo ariba Ilaahay nagu manaystayna caana ayaa naloo keenayaa. Haddaba waxaan isla eegi doonaa qodobada aan isleeyahay in laga faa'iidaysto si xoolahan aan uga helno faa'iidada dunida kale ay xoolaha ugu fadhiyaan. Waxyaabaha koowaad ay tahay inaan diiradda saarno waa inaan horta baranno laftirkeeda xoolahan aan haysano sidaan u dhaqan lahayn, oo nooca waagi hore ee xoolo raacashada ahayd aan ka guurno una guurno habka casriga ah ee xoolaha loo dhaqdo. Soomaaliya waxaa ku nool malaayiin xoolo ah oo ay ku jiraan geel, ari iyo lo'. Taasina waxa ay ka dhigan tahay in xooluhu yihiin hantida ugu badan ee dadka Soomaaliyeed ay haystaan. Waxaa loo dhoofiyaa xoolo badan sanad walba suuqyada Carabta, laakiin haddana weli bulshadeennu waa kuwo sabool ah, mana laga helo faa'iidadii ay ahayd in suuqyadaas xoolaha loo dhoofiyo laga helo. Marka aan idhaahno dhaqashada casriga ah, waxa aan ka hadlaynaa in xoolaha si joogto ah loo ilaaliyo, isku dheelitirnaanta cuntada iyo waxyaabaha la siinayo, halka la daajinayo iyo waxa ay cunayaan. In sidoo kale xoolaha loo sameeyo tallaal caafimaad iyo daryeel joogto ah, iyadoo la raadinayo dhakhaatiir iyo dad ku habboon oo ka qayb qaadan kara in xoolaheennu noqdaan kuwo caafimaad qaba, suuqyada dunidana loo iibgeyn karo. In sidoo kale la isticmaalo qalab casri ah oo qaboojinaya caanaha kana dhigaya kuwo waqti badan ooli kara ama la manaafacaadsan karo. Sidoo kale inaan xoolaha u samayno xeryo ay ku jiraan, maadaama socodku uu ka yareyn karo xoolaha tabar badan oo ay adeegsanayaan haddii la yareeyo xooluhu looga heli lahaa dhanka kale caano. Sidoo kale habkani waxa uu aad ugu fiican yahay wax soo saarka xoolaha. Haddii neefka la xareeyo oona wax badan oo cuntada kaa cuni maayo, faa'iidadiisa dhanka caanahana aad ayay u kordhaysaa. Arrinta kale oo aan isleeyahay inaan xoogga saarno waxay tahay, marka dhaqashada casriga la hirgelinayo waxyaabaha laga helayo, waxaa la helayaa tayo fiican oo suuqa iibka ah ama dhanka hilibka ee xoolaha. Sidoo kale waxaa la helayaa caano nadiif ah oo neef laga taxadaray caafimaadkiisa lana ilaaliyay. Caanaha laga heli karaa waxay noqonayaan caano aad iyo aad muhiim u ah. Sidoo kale waxa uu noqonayaa shaqo abuur dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaan ognahay inay dalka uga cararayaan fursad la'aan iyo inaan shaqo dalka ka jirin. Taasina waxaa beddelkeeda shaqo abuuri kara haddii dhalinyarada la baro inay ka faa'iidaysan karaan xoolaha. Sidoo kale, maadaama dal walba caalamka wax lagu barto, maadaama anagu aan nambar badan oo xoolaha haysano, waxaan uga faa'iidaysan karnaa inaan suuqyada barno dunida, sumcaddeenna dalkeennana aan kor ugu qaadno, noqonana dad wax soo saar leh oo wax looga xisaabtamo. Haddii aan rabno inaan horumar dhaba samayno, runtii waa inaan qaadanaa tallaabooyin muhiim ah. Iskaashi inaan samayno si aan xoolaha si casri ah ugu dhaqanno oo aan ka guurno habkii hore. Inaan samayno waxbarasho iyo wacyigelin bulshada ah, in la baro dadka xoolaha haysta inay xoolaha ka faa'iidaystaan. Waxaa laga yaabaa hadda haddii aad miyiga tagtid ama dalkeena meelo badan oo ka mid inaad ku aragtid qof 100 halaad haysta oo haddana laga yaabo inuu dad shaxaad iyo qurbaha jiro uu leeyahay lacag soo dira, xoolihiisina uu ka baahan yahay. Sidoo kale waxaan ku dhiirigelinaynaa shirkadaha iyo cid kastoo dhaqaale haysata inay maal gashato xoolaha, maadaama xooluhu ay yihiin kuwo dunida aad looga xiiseeyo. Cid walba xoolo haysataana dunida looga yaqaano inay tahay cid lacag leh. Sidoo kale in la kordhiyo suuqa ama loo sameeyo waxa la yiraahdo suuqgeyn caanaha iyo hilibka xoolaheena
aanu ka iibin karno sidoo kale dalalka dariska nala ah iyo dunida inteeda kale oo aanan isku halaynin carabta oo keliya. waayo suuqyada carabta haddaba sidaan ognahay marar badan waa ay xumaadaan, waxaana looga faa'iidaysan karaa in dalalka dariska nala ama qaaradda Afrika inteeda kale ama dunida meelo kale oo ka mid ah aan hilibka iyo xoolaheena iyo caanahaba aan geyn karno, kuwaasoo runtii aan isleeyahay waxay bulshadeena u noqon karaan suuq weyn oo ay dunida kale ka helaan marka laga yimaado dalalka carabta oo ah meesha ugu weyn aan hadda ku tirsannahay. ugu dambeyntii daawadayaal, waxaan rabnaa xoolaheena inay noqdaan hanti qiimo leh oo aan ka faa'iidaysano, annaguna aan ka helno nolol horumarsan, dadkeennuna ay noqdaan kuwo waxa ay haystaan lagu tixgeliyo laguna yaqaano. sidaasna waxaan ku noqon karnaa bulsho xoolaheeda ka faa'iidaysatay ee aan noqonin xoolo raacato, balse noqoto xoolo dhaqato wax haysata. dhanka beerahana haddii lagu daro waaba ay ka fiicnaan lahayd. sidoo kale waxay abuuri lahayd fursado dhinaca beeraha ah maadaama calafka xooluhu noqon doono wax aad loogu baahan yahay. waxay kaloo arrintaas yareyn kartaa colaadaha iyo dhiigga dadka Soomaaliyeed ee ku daadanaya malayacniga laga yaabo daaqa xoolaha iyo biyaha in lagu dagaalamayo. balse haddii dadku ay yihiin dad beero jooga oo xoolahooda meelo kooban oo la yaqaano ama dhul kooban ay ku eg tahay, taasna waxaan isleeyahay sidoo kale dhanka colaadda iyo dhibaatooyinka soo noqnoqda ayay yareyn lahayd. maxay kula tahay adiga aragtidaada? dhinaca hoose ee qaybta commentiga nagula wadaag. fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii aad nagu cusub tahay waxyaabaha xoolaha iyo sida looga faa'iidaysan kara ayaan doonaynaa inaan ka hadalno boggeenna iyo janaalkeenna labadaba, inaad naga soo raacdid nalana noqotid saaxiib dhow si aad nooga faa'iidid waxyaabo badan oo muhiimad leh, aadna ogaatid waxyaabo badan oo laga yaabo inaadan horey ugu baraarugsanayn ama aanad ogeyn, kuwaasoo laga yaabo inay wacyiga kor u qaadaan wax badan aad ka ogaatid. waxaan ku leenahay soo dhawow, malaa'igtana hanaga hilmaamin. haddii aad saaxiibada la wadaagi kartidna waad ka sii fiican tahay. mahadsanid.